Asalaamu calaykum soo dhawaada wadaashan sharafta leh haddii aad ka mid tahay dadka xiiseeya sheekooyin kala duwan adduunka daafihiisa ka dhacay channelka ayaa ka heli doontaa si aysan ku dhaafin wax kastoo cusub subscribe dheh gambalaalka furo like tii share-tana ha ilaawin wax ma idinka dhibaysa anagana channelka ay noo qurxi doontaa insha Allah qisadan waxay ku dhacday family ahaa faqiiro aan waxba haysanin ninka sheekada ka sheekeynayana wuxuu ahaa dariskooda qaadi ayuu ahaa waxaa jira qoys faqiir ah oo waxba haysanin aabahooda wuxuu gadi jiray qudaarta xataa asagu ma lahayn waxaa lahaa nin ayuu u gadi jiray marka maadaama aysan waxba haysanin kasta yartoo mushaarkiisa raashin ayuu kusoo gadaa qudaarta boloshay waxa la nacay iyo wuxuu ninka iskala qudaarta iskugu soo daro ayuu ilmihiisa u keensan jiray masaafo dheerna uu soo lugayn jiray marka ninka dariskooda oo sheekada ka sheekeynaya wuxuu yiri waxaan ku noolaa oon habeen kasta dhageysan jiray farxadda cidaan dabcan dadkii hore sida hadda guryaha u xirxiran yihiin oo la is ogeyn ma ahayn wax kasta way iska ogaan jireen marka wuxuu leeyahay waxaan la noolaa farxadda cidaan ay ku nool yihiin faqiirada ah noloshooda yar ay ku qanacsan yihiin mashaakil la'aanta odagu markuu habeenkii imaado ilmaha bacaha fagaayaan aaba inta maxaa ku jiro inta maxaa ku soo haray inta maxaa ku riday inta farxadaas ayuu cid kula noolaa aad ayuu ugu farxi jiray jawiga ay ku jiraan cidaan habeenada kamida xilligii uu odagu imaan jiray ayaa wuxuu maqlay oohin isqabsatay xaafada dhan aad ayuu u naxay wuuna orday cidii dariskiiseeda ayuu u tagay laakiin muxuu arkay odagii oo dhintay oo la keeno meyd ah dabcan odaga intii uu soo socdo maskiinka ayaa baabuur dilay asagoo meyd ayaa guriga la keenay odagii xaafadii iskugu soo baxday ilmihii waa loo tacsiyey waana la duugay dabcan muddo ka bacdi wiilashiisa wiilka ugu weynaa ayaa wuxuu noqday xamaali suuqa ka xamaalo wax kala habeeyo qudaartii meel ka gado almaham cidda way noolaayeen hooyadiisu maalmaha kamid wuxuu yiri waxaa la qaadanayaa askar hadda askari noqdo noloshan xoogaa way isbedel lahayd waxaan rabaa inaan tago oon askar galo ka bacdi si noloshan isku bedesho markuu 18 sano gaaray hooyadii way ka aqbashay laakiin inay ka aqbasho uma aysan fiicneen wiilka nolol maalmeedka ayuu u keeni jiray laakiin hadda maadaama uu ka tagay cid u keenaysa nolol maalmeed ma jirto wiilkiina wuu baxay meel fog ayuu tababar u aaday waqtigii horena telefoon iyo wax la iskula hadla ma aysan jirin dabcan hooyadii aad u walwashay ayadii ilmaheedii soo hara baahi duruuf dhibaato meel ay wax ka keento waa hooyo weligeedba loo soo adeegi jiray ay ahayd weyse aad ay u rafaaday waxay u tagtay nin dukaan ku haystay xaafadooda waxaan u sheegtay inuu lacag deemiyo ay xoogaa ku noolaadaan ballan ayuu la gal wuxuu yiri lacagta waan ku deeminayaa laakiin haddii aad ku keeni weyso muddo intaas leeg gurigiina ayaa in kala wareegi doonaa waxay kala qorteen ballan iyo waxay kala qorteen warqado islaantii maskiinta ahayd oo ilmaha agoonta haysatay lacagtii wax isku dayday inay wax ku qabato laakiin way u suurtageli weysay lacag yacni dad baahan haystaan meel ma gaarayso qofka hadduu xoogaa guriga ka dabaran yahay guriga wuxuu yaalaan lacagta wuxuu ku qaban karaa laakiin meel nolosha siir tahay guriga baahi ka jirto lacagta wax ma qabanayso almuhim lacagtii isku dhamaatay wuxuu isku gubteen hooyadu way fikirtay wuxuu ku fikirtay inay guriga gado deenta iskaga bixiso wiilkeedana doonto ay askarta ka soo wado oo lacagta ugu shaqeeyo wiilkeeda ilaahay wuu waafajiyay gurigeedu way beecaysay gurigeedu waa gadmay deentiina waa iska bixisay ballantii inta aan la gaarin ka hor hooyadii way baxday waxay tagtay meesha laga raaco taksiyada si ay u doonto wiilkeedii magaalada uu ku xareysan yahay oo askariga tababar nimada ah oo u jiro hooyadii waxay tagtay meesha taksiyada laga raaco waxayna rabtay in ay baxdo laakiin taksigu maadaama hooyada degdegsaneed ma baxay ilaan uu buuxsamo uu dadka uu rabay oo dhan helo taksiliyi hoos ula hadashay waxay tiri wiilkeegiyo meeqa qof ka dhimay wuxuu yiri adiga maahana waxa iga dhiman 4 qof oo kale waxay tiri dhima lahan 4 qof lacagteeda anaa bixinayo aniga i kaxay wuu caadi u yiri hadda dadka aniga iga dhiman lacagtooda siinayso oo kaxayna wuu baxay hooyadii u kaxeeyay mar ay cabaar sii socdeen wuxuu ku yiri maxaa ay tahay sababtaad 4 qof lacagtooda ah u bixiso qof daruuf ka muuqata oo ag tahay 4 qof lacagtooda kugu badantaa maxaa way degdeg kugu jiro hooyadan maskiinta ah oo shar ka cabsanayn oo weligeed dhib arkin oo weligeed ma arkin fasahaad iyo balaayo ilaan dadka lacagta haysta ma arkin murug iyo dhib iyo rafaad iyo balaayo maray maba aysan arkin kuma jirin qof shar wata adduunka jooga sirteedo dhan u sheegtay odagii ka dhintay nolosha ku noolaa jireen wiilkeeda halkuu jiro guriga inay gaday inay deynta iska bixisay inay ma arkino ay lacag noocaas hadda wadato lacagteeba iska wadataa miskiinto
meel xataa ma dhigin. ninkan wuxuu ahaa nin shaydaan ah tagsiilaha ah mowduuci hooyada dhan markii uu ogaaday ayaa wuxuu ku fekeray inuu hooyadan lacagta ka dhaco hortooda waxaa ku yaala meel webi ah oo maxaa saas loo agmara baabuurta maraan laakiin markii ay xoogaa habeen noqotay ee meesha ku aadeen ayuu inta istaajiyay tagsigii oo hooyadii lacagtii ka qaatay oo bog iyo xabad u garaacay ayuu wuxuu ka tuuray waadigii ku tuuray dabcan waadiga wuxuu leeyahay banaan kore iyo meel hoose uu qodayahay Soomaha uu ku tuuray almuhim hooyadii way dhacday waadigii waa dabcan waa la gali karaa hadii qofka tartiib u gal laakiin ayada uu ku tuuray xog ayuu ugu tuuray way ku dhacday hooyadii way jabtay qeyladeeda ayaa meesha ka sii yeeraysa laakiin asaga wuu iska baxay tagsigiisii si aan looga shakinin oo la dhihin maxaa dhaqsiyaad soo noqotay wuu baxay meeshii uu u socday magaalada ay u socdeen ayuu tagay wuxuuna ka soo qaatay rakaab kale uuna soo laabtay lagama shakinin dib ma jirin tagsiilayaashii isla markiiba ayadoo tagsiyaal dhooban yihiin ayaa ilaahay amarkiis wax ilaahay wato waa gooni ayaa dadkii tagsida dabcan dalaaliilan jira Soomaha tagsiyaasha raraan ayaa waxay dhaheen soo bax waxa lagu helay dad hadda qaadiso degdeg lagu helo diyaarsan waa ilaahay amarkiis iyo meel wax ka socdaane dadkii ayuu soo qaaday xal muxuu dilay islaantii muxuu soo qaatay rakaab wuxuu ku soo noqday magaaladii oo islaanta ka qaaday isla markiiba rakaab loo helay waa wax ilaahay xaqiisa ka socdo markii uu maray meeshii uu islaanta ka riday oo lacag ka qaato maskiinada ahayd oo faqiirada ahayd oo ilmaha yatiinta haysatay ayaa ilaahay qalbigiisa wax ilaahay xaqiisa ka socdo waaye wuxuu isiri istaag ee naagta xal aad meeshan ka tuurto ma dhimato soo fiiri dadka wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan musqul aado dabcan meesha musqulku ma talaabo musqusha duurka leh Soomaa waxaan rabaa inaan waxba xaajadeed inaan soo guto aan hoos u degaan rabaa hayay ku dhaheen meeshii uu joojiyay dabcan meel oo waadiga looga degan karo ka degtay islaantii ayuu soo fiiriyay xalay inay bahal cuneen iyo inay dhimatay iyo waxbus soo fiiriyo isdhaasay u dhimatay wuxuu ilaahay ku bushkareynaa markuu meeshii tago wuxuu u tagay islaantii oo nool laakiin jajabtay oo dhiig baxday markuu wuxuu yiraahdaa wali waaba noosha miyaaba cambaro dhagax weyn oo soo qabsay isdhaayay ayaa gacanta waxaa ka qaniintay abeeso weynaatay iska weynaatay meesha jiiftay ayaa gacanta kaw ka siisatay qaylo wuxuu qayliyay aad u maleysid in microphone loo dhiibo waaw dadkii taksiga saarnaa oo isdhaa ninkii bahala cunay oo soo kala cararo waadiga soo galay asagoo qaylinayo oo gadgadoomayo oo suntii bahasha qaniinta la gadgadoomayo abeesada ayay u imaadeen isla markiiba waxay arkeen ninkan xanuunkiisa waxa ooga darnaa qaylinayaba qof dumar oo dhiig baxday oo jajaban oo indhaha bisaska siinayso ayaa meesha taale waxay waceen way baxeen magaaladii qaar lagu celiyay waxay keeneen askar iyo waxay keeneen ambulance islaantii la qaaday asagana waa la qaaday waxaa la geeyay isbitaal wax yar ka bacdina ninkii wuxuu u dhintay suntii abeesada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaq soore ilaahay dhaxdeena dulmi uu ka xarimay naftiisana uu ka xarimay dulmi ilaahay subxaanahu wa tacaala islaantii waa la daaweeyay waa la kakabay dhiigaga lagu shubay waa la wareystay sidee wax u jiraan waxay tiri ninkan saas ayay ahayd dadka lacag afar qof lacagtoodan bixiyo waan degdegsanaa lacagtii sirteedii u sheegay lacagtii iga qaatay waadigana uu iga tuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii xayawaan xal waadiga jooga oo qeylinay oo xataa abeesadii asaga qaniinta agteeda joogtay ilaahay uu iga badbaadiyay asagana waa lagu sababay ducadeediina ilaahay uu ii ajiibay waxay tiri ilaahay ayaan aad u baryayay inuu ilaahay awlaadeyda ii xafido anigana i xafido ninkaasna xaqayga iga qaado ilaahay xaqeeda uu uga qaado dabcan isla markuu tagay oo magaaladii dadka soo qaato hadana meeshuu naagta ka soo qaaday tagay dadka loo helay ilaahayna wuxuu ugu sababayay in ninkan sirtiisa ka shifanto hadana taas ilaahay qalbigu wuxuu ka sii galiyay inuu hoos u degto marka ilaahay subxaanahu wa tacaala horta xaqeeda uga qaaday waa la baxay wiilkii ay doonaysa waa loo doonay wiilkeedu waa loo keenay ayadu waa la daaweeyay wiilkii lacagteedu ku shaqo bilaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u barakeeyay ilmihii iskoolay dhigteen qaar dhaqaatiir noqdeen dhaqtaree noqdeen qaar waxay noqdeen dad kalantoo ka shaqeeya shirkadaha caadiga ah cidii ilaahay subxaanahu wa tacaala duruuftii way ka bixiyay guryo ayay gateen nolol aad u qurux badan ayay galeen dad wiilkiina wuxuu noqday ninka dadka ugu taajirsan oo lagu tiriyo magaalada deganaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeena xaasidnimo ma geliyo xaasidnimada waa dadka
noocaas oo kale waa xaasidiinta ugu xun oo qalbigooda raxmad lahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekadaas quruxda badan horta ku dhamaatay, faamiligiiyo maaragtay aabahood ilaaha dabcan ka qaatay, noloshaas quruxda badan ayay ku dambeeyeen. ninkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaanay abaasadaas oo xaqii islaanta miskiinta ooga qaaday. sheekadana sidaas quruxda badan ayay ku dhamaatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala cadow gacanta nooma geliyo, qalbiyadanana jacayl ha isu geliyo. sheekadan sheekada xigta si aysan kuu dhaafin, subscribe deh, gambalaalka furo, like, share tana ha ilaabin, wax ma inka dhibaysa anakana channelka ay noo qorxo doontaa insha Allah. Bye bye.